waxaa lagu jiraa xilli jahawareer ah oo malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawareersan yihiin saameynta cudurka corona taa oo ay ugu wacan tahay warbixinada iyo wararka isa soo taraya ee ku saabsan cudurka corona oo aanan ahayn kuwa ay badankood lagu maqli karaan sida ay u badan tahayna qof walba waxa uu isweydiinayaa goorta ay joogsan doonto cabsida coronavirus iyo saameyntiisa faraha ba'an ku haysa dunida xanuunkan oo dhibaatada ka dhalatay haatan si weyn dunida looga dareemayo ayay saynisyahanada caalamka waxay sheegeen in ay adag tahay in waqti dhow la sameeyo daawo looga raysan karo balse waxay khubarada ku taliyeen in daweynta ay mar walba ka wanaagsan tahay ka hortagga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkaasi ka hortag oo iska ilaali dad badan oo dunida ku nool waxay aad ugu walaacsan yihiin xanuunkan waxaa la sheegay in xanuunku aad u soo rito dadka da'da ah kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sokorta neefta iyo xanuunada ku dhaca wadnaha dadkaas ayaa la sheegay inay u nugul yihiin xanuunka corona hase yeeshee arrinta ugu wanaagsan ayaa ah in qofka iska ilaalin kara xanuunka haddii uu sameeyo tallaabooyinkan soo aadan oo ay soo jeedeen dhaqaatiirta saynisyahanada iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. mar walba gacmaha dhaqo gacmaha oo mar walba lagu dhaqo saabuun iyo biyo nadiif ah waxay qofka ka caawinaysaa in aysan gacmihiisa ku harin wax jeermis ah ama inuusan qaadin xanuunka corona sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka in gacmaha mar walba la mariyo oo lagu dhaqo aalkolada jeermiska disha ee loogu talagalay in gacmaha la marsado in gacmaha lagu dhaqo saabuun biyo iyo aalkoladaas waxay ka hortagaysaa ama ay dilaysaa caabuqa ama jeermiska gacmahaaga ku dahaaran ka fogow dadka maadaama dadka qaba xanuunka corona ay aad u qufacayaan waxaa muhiim ah in qof walba oo qufacaya ama hindisoonaya aad ka fogaato 1 mitir arrintan ayay hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyey WHO waxa ay ku sheegtay in marka qofka uu qufaco ama uu hindisoonayo ay jirkiisa haddii ay ahaan lahayd sanka ama afka ay ka soo baxaan dheecaan duulduul ah kuwaasi oo laga yaabo inay sitaan xanuunka haddii aad ku dhowdahay qofkaasina waxaa suurtagal ah in waxyaabahaas aad neefsato ama ay gudaha u galaan jirkaaga hataabanin sanka afka iyo indhaha haddii aad gacmaha ku taabato meel ka mida jirkaaga waxaa dhici karta inay sidaan xanuunka mar walba oo aad doonayso inaad jirkaaga taabato waxaa muhiim ah inaad gacmaha dhaqato gacmahaaga waxay si sahlan xanuunka ugu gudbin karaan sanka indhaha iyo afka waxayna taasi keeni kartaa in caabuqa uu gudaha u galo jirkaaga taas oo keeni karta in aad xanuunsato ama uu kugu dhaco xanuunka haddaba goormuu bilowday coronavirus ma ahan mid cusub waxa uuna hore uga dhici jiray xayawaanada balse waa mid ku cusub dadka kadib markii uu noqday mid isaga gooshi kara dhammaan noolaha ha yeeshee waxaa la sheegay in dadka uu ka soo galay suuq lagu iibiyey hilibka oo ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha kaas oo lagu iibiyey hilibka xayawaanada u nugul caabuqan dadka Shiinayska ah oo ah kuwa si dhow ula macaamila noocyada kala duwan ee xayawaanada xambaara caabuqan sida kibiliga ama fiidmeerta ayaa sabab u noqday inay caabuqan ka soo amaahdaan xayawaanada isla markaasina u soo gudbiyaan aadanaha sanadii 2002 ayaa sidan la mid ah Shiinaha waxa ay sabab u noqdeen inay ka soo amaahdaan xayawaanada caabuqa SARS ee ku dhaca fiidmeerta iyadoo sida la sheegay caabuqa ay bistad ka soo qaaday fiidmeerta una soo gudbisay aadanaha goormee la helayaa talaal caabuqan COVID-19 waa mid ka mid ah bahda caabuqyada ee la isku yiraahdo coronavirus mana u muuqda mid u sahlan sida caabuqyada ku bahda ah ee SARS iyo MERS dad badan ayaa ka fikiraya goorta laga baxaya xayiraadda iyo is-ilaalinta ama gebi ahaanba la hilmaami doono argagaxa uu abuuray cudurkan iyadoona arrinta dunida walwalka ku haysa ay haatan tahay in cudurkan uusan lahayn wax talaal ama dawo ah balse xilli uu sii faafayo ayaa waxaa jirta dadaalo ay wadaan culimada caafimaadka ka oo ay ku doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu helo talaal si looga baaqsado khasaaraha badan ee uu sababayo cudurkan qof waliba si gaar ah u saameeyay
fadlan subscribe dheh oo taabo gambaleelkan si aad ula socoto muuqaaladeena xiga.